wararka ka imanaya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in xabsi ku yaala magaaladaasi laga sii daayay maxaabiis uu cafis u fidiyay madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe. Wariyahayaga Sabir Honesty ayaa warkaasi inoo haya. kadib markii madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Mudane Maxamuud Sayid Aadan oo khudbad dheer maalintii ciidda ku sheegay in maamulka Jubbaland uu cafis u fidiyay tira maxaabiis oo ku xiran xabsiyada kala duwan ee ku yaala magaalada Kismaayo ayaa maantay waxa xabsiga dhexe ee ku yaala magaalada Kismaayo laga sii daayay tira maxaabiis iyadoona uu warbaahinta la hadlay xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda sare ee gobolka Jubbada Hoose Cabdicasiis Maxamuud Yuusuf waxaana uu sheegay in maxaabiistan laga sii daayay xabsiga dhexe ee ku yaala magaalada Kismaayo lagu sii daayay cafis uu u fidiyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxaana uu sheegay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa salaatu wa salaamu calaa ashrafil mursaliin sayyidina Maxamed wa calaa aalihi wa sahbihi sallim. maanta oo taariikhdu tahay 28 bisha 6 2017 waxaan rabnaa halkan inaan ka sii dayno dadkii maxaabiista ahaa ee madaxweynaha Jubbaland uu cafiska u fidiyay Axmed Islaam dadkaas oo tiradoodu ay dhanayd 105 qof oo Jubbaland oo gobolka Gadiya gobolka Jubbada Hoose ka kooban marka qaybtii gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan magaalada Kismaayo ayaan rabnaa in halka ka sii dayno annagoo xafiiska xeer ilaalinta gobolka Jubbada Hoose maxkamadda rafcaan gobolka Jubbada Hoose maxkamadda ciidamada qalabka sida Jubbaland marka dadkii baan rabnaa hadda inaan sii dayno waxaan joognaa xafiiskii ama xabsiga dhexe degmada Kismaayo maxaabiistiina hadda ayaan sii daynana waad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dhanka kale maxaabiista ayaa warbaahinta la hadlay waxaana ay ka warbixiyeen dareenkooda ku aadan sida ay u arkaan cafiska uu madaxweynaha Jubbaland u fidiyay. ilaahay baa mahadle qodobka koobaad qodobka labaad waxaa mahadle oo salaamayaa oo aan ku faraxsanahay dowladda Jubbaland madaxweynaha Axmed Madoobe cafiska uu noo fidiyay annaga oo daryeel badan qabnay markaan xilnaynna caafimaad waxbarasho xanaano wax walba aan qabnay waxaan ku faraxsanahay dowladda Jubbaland iyo madaxweynaha Axmed Madoobe siideenta uu saakana sii daayay ayaan ku faraxsanahay dowladda Jubbaland. bismillaahir rahmaanir rahiim aad baan ugu faraxsanahay madaxweynaha cafiska uu noo fidiyay haddii aan macnaha meeshan aan ka baxayn waxbarasho macnaha meeshan waa ku haysanay aad u fiican maasha Allah waa ku faraxsanahay. bismillaahir rahmaanir rahiim aniga oo magacayga Salebaan Aadan Xasan waxaan ku bilaabayaa marka hore waxaan ahayn maxaabiista xabsiga dhexe saaka waxaan rabnaa haddii Ilaahay maadin in aan ku baxno cafiska madaxweynaha annagoo ku faraxsan aad iyo aad 100%. si kastaba ha ahaatee waa tiradii ugu badnayd ee maxaabiis ku xirxiran magaalada Kismaayo uu cafis u fidiyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyadoona ay xusid mudan tahay in tiro kale oo maxaabiis laga sii daayay xabsiyada kala duwan ee ku yaala gobolka Gado. Sabir Cabdulqaadir Rursam Sabir Honesty telefishinka caalamiga ee Somali Cable magaalada Kismaayo.